السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا أن جعلها كسر وهذا ميل كستو أجوكتان maanta waxaan idin hayaa video cusub. Videoga soo wax badan aad ka fahmi doontaan insha Allah. Videogana maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee aad u sameyn kartaa YouTube thumbnail. Yani thumbnailka waa sawirka ka horeeya muuqaalka intuusan shidmin. Yani sawirkaas waxyaabo badan ayuu ka caawin karaa, sida in sawirkaas kumanaan qofood ay kugu soo raacdo, sidaasna aad ku hesho waxyaabo badan oo ku caawinaya in subscribe lagu saaro in lagu daawado. ugu horeen waxaan ugu qayb qaadanaynaa casharkeena maanta laba application, labadaas oo kala ah Pixel Lab iyo YouTube Studio. Yani Pixel Lab waxa lagu sameeyaa YouTube thumbnailka lagu sameeyaa, YouTube Studio yani muuqaalka ayaa lagu dul saaraa. Yani insha Allah waxyaabo inta aan ka fahansanayaan idin ka fahansin doonaa insha Allah. channel ka ku cusub tahay subscribe deh, kambalelkana furo, like iyo share na kama marno. waxaad soo furanaysaa applicationka Pixel Lab. ugu horreyn markaad soo furto sidan ayuu ku soo qabanayaa. waxaa jiro cabir looga talagalay YouTube thumbnail. sidaas cabirkaas aad u saarato waxaad taabanaysaa saddexda su'aalood, kadib waxaad ka dooranaysaa image size, kadib waxaad ka sii dooranaysaa custom. yani waad u jeedaa waxyaabo badan inay meeshan ka soo saaray. waxaan ka dooranaynaa hadda YouTube thumbnail, kadib waxaan leenahay okay. waad u jeedaa sida hadda size-ka hadda inuu ka soo yara gaabiyey, sawir yar oo kooban oo meeshan soo qabtay. marka hadda text-kan marabno waan iska delete gareynaynaa. kadib waxaan sameynayaa background-kan gadaal aan rabaa inaan kalarka ka bedesho. waxaan taabanayaa labadaas ulood iskor saaran ama labadaas wax iskor saaran, kadib kalar ayaad leedahay. kadib waxaad ka sii dooranaysaa kalar alaala kalarka ku qanciyo meeshan ayaad ka dooranaysaa. tusaale agagan isaga ka soo qaadkan oo kale. kadib waxaan rabaa inaan ku soo daro sawir from gallery ah, gallery sawir iyaal inaan ku soo daraan rabaa. balaaskaas ayaan taabanayaa. kadib waxaan kusii qorayaa meeshan from gallery. markii aan ka doorto meeshaas waxaan raadinayaa sawirkaan u baahnaa. waan helay sawirka. kadib waxaan qarinayaa kasaas yar qoraalka ayaan qarinayaa. kadib calaamad sax ayaad leedahay. sidaan yani marka u yaalo waxaad ku soo darsanaysaa textka waxaad u rabtay ee thumbnailka ku saabsan ayaad ku soo darsanaysaa. eedan ayaad imaanaysaa, kadib text ayaad leedahay. kadib qalinkaas ayaad taabanaysaa, isla qalinkaas ayaad ku dhufanay. meeshaan waxaan ku qoraynaa hadda tusaale kale sida loo sameeyo thumbnail. kadib okay ayaad leedahay. yani hadda waxaan aan soo sameynay farta ah waad ka bedeli kartaa farta. waxaad tagaysaa fontiska. fontis aad u qurux badan ayaa ku jira meeshan, kaasoo aad ka rabta aad ka dooran karto. waxaan oo dhan waa fontis, laakiin aniga hadda ma rabi. waxaan aadayaa meeshan kale fontiska ku jira styleka ah ayaa fontis kale ku jira. kadib browse ayaan ka dooranayaa. waxaan jeclahay simple. yani waad u jeedaa hadeer inaan fontis qurux badan soo helay. kadib size ayaan leeyahay si aan u weyneeyo cabirka. video wax yar ayaan ka dhimayaa. hadeer waa okay, sax ayaan leeyahay. hadeer waxaan dooranayaa sawirka inaan ka bedelo ayaan rabaa. inaan soo dheereeyo, yani size-kiisa aan dheereeyo ayaan rabaa sawirka. yani sidan ayaad dhinacan ayaad ka qabanaysaa, waad soo jiidaysaa si aad ula sinto shaashada mobilkaaga. xogaa waan zaa'idinayaan dhimo. sidan ayaad leedahay. yani hadda waxaa ku soo baxay sawir aad u qurux badan. sidoo kale midkan kalarka waad ka bedelan kartaa.
waxa aad soo samaysatay aha qoraalkii aad soo samaysatay farta waad ka bedeli kartaa ama kalarka waad ka bedeli kartaa. halkan waxaa ku qoran kalarkaas ayaa taabanaysaa kadib waad ka bedelan kartaa. tusaale kale midkaan isaga day kalarka qurux badan oo jiraan sax dheh. kadib waxaad leedahay calaamada iskiyaabaha ayaa taabanaysaa. kadib meeshaan waxaa waajib ah inay ku noqoto cabirkaas oo ah PNG, yani haddaan ka dhigin hadhow waxaa caqabad kugu noqon karta inaad saarto muuqaalkaaga thumbnailka aad kusoo daashay ee waqtiga far badan aad ku soo bixisay. kadib save to gallery ayaad leedahay. sidaan waxaa kugu dhammaaday qaybta koowaad ee applicationka Pixel Lab. xayeysiin yar ayaa nala aaday. asxaabta marka waad ka baxaysaa waxaad aadaysaa applicationka YouTube Studio si aad u saarto muuqaalkaaga sawirka aad soo samaysay. kadib YouTube Studio markuu ku soo baxo sidan ayaad ku soo baxaysaa. waxaad ka dooranaysaa muuqaaladaada midka aad u rabto inaad saarto thumbnailka. kadib waxaad sii taabanaysaa calaamadaas qalinka ah ee editka ayaa taabanaysaa. kadib calaamada qalinka ayaad sii taabanaysaa haddana mar kale waxaa ku soo baxaysa sidan. kadib janji ayaad leedahay. waxaa halkan ka muuqda ujeedada sawirka hadda aad soo samaysay ayaa halkan ka muuqda. kadib select ayaad leedahay. select markii aad aado yani waa kana aniga hadda mar rabo inaan saaro yani save waan dhihi karaa oon ii saarmaya, laakiin videoga iyo yani sawirkan hadda aan idinku tusaaleyna ayaan islahayn. marka yani waan ka cudur daaranaya dhinacaas inaan saari karin, laakiin adiga halka markaad imaato save ayaad leedahay waad ku dhamaystiraysaa. sidaasna ayaa thumbnail kugu saaran yahay. waxaan rajaynayaa midka qurux badan inaad samaysan karto, aad isku dayi karto mar walba. waxaan idin leeyahay intaas ayuu videogayga ku egyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan.